السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لا شرفت الله Soomaaliyeed waa inay salaam meel kas joogtaan oo odigii lixda jirka ah oo socodka badnaa marka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala idin xifdiyo waxaan maanta in la qaybsanayaa gabadhan Soomaali oo Ingiriiska ka tagtay oo dalka tagtay oo runtii xanuunsanayd say qabowgu u kaleeysay oo u shaqaynaysay tiibay baa ku dhacday marka waxay sir bal dalkii daawadan ku soo qaado soo yara naso gabadha marka walaalaheed iyo dadkoodii say u qaabileen ayaan in la qaybsanayaa insha Allah ta'ala marka intaas ka hore waxaan markaas ku xasuusiyaa caafimaadkaada ka fikir shayga ugu horeeyo ood ka fikiraysa waa naftaada because nabigaada suubane sallallahu alayhi wasallam ayaa kuu sheegay ku dhahay wa inna li nafsika alayka haqqa waad ogtiin anigu dee waa odigii mataqaanaa dhiikarka iyo sokorta iyo la noolaa keliya xanuunka khaasatan keliya xanuunka la noolaa keliyihii waad ogeydeen 2024 waxay marayeen 24 boqolkiiba waxaa weeye EGFR baa lagu cabiraa dhiigga markii lagaa qaado keliya intay marayaan aan la ogaan karaa marka dhakhtarku wuxuu yidhi keliyahada weliba waa deteriorating waaba dhacayaan mar dhow waaba dhacayaan marka waxaas kulli maxaa keenay wuxuu igu yiri prolong and control blood pressure affected your kidneys waqti dheer oo dhiigkarkaada kacayay ayaa kiliyada saan u galay marka agaw markaas ida 2009 waa idin sheegay kaniin halax baa lii qoray kaasaan iska qaadanay alxamdulillah waa fiyooba laakiin dhiigkarka saa kuma shaqeeyo kaniin qaadana kaliya kuma shaqeeyo waa ina cusbada iska ilaalisid waa ina mataqaanaa sariid farab ilaalisid waa ina socodka ku dadaashid waa ina biyo ku dadaashid waxa soo aan mataqaanaa ma ogeyn saas awgeeda markaan suuq ii wadi 2020 markii la sheegay waa kiliyada mar oo dhacayaan marka aadi waxaan kaaga digayaa sideed oo kale ha noqonin dhiigkar badaa qabtid cuntadaadana bedel mataqaanaa socodkana badi biyahana cab haddii kala soo maaha dhiigkarka wax badan buu ii keenaa waa ii sheegay cholesterolka mataqaanaa gastriga keliya xanuunkii wadna xanuunkii fatty liver oo beerka oo mataqaanaa noqdo oo mataqaanaa subag saarmo wax badan buu keenay dhiigkarka waxaana yeelaa cuntadii ma aanan joojinin ilaa 2020 cuntadii caadaan u watay wax digayna ma lahayd Soomaali waxaan ugu digaanaysaa waxaan kugu digaysaa is ilaali gabadhan Soomaaliyeed maxaa ku dhacay dad barkiisu aqli gaaban markaas waxay moodayaan aan qaraabadooda inaan ku dirayo warqaraabada hada xariiri laa yadkhulu jannata qaadi'u nabi sallallahu alayhi wasallam qaraaba ninaan xariirin janna ma gala qaraabo goos janna ma gala Soomaa laakiin midaan kulay waxa weeye marka ugu horeysa waa naftaada yaa ayuha alladina aamanu qu anfusakum wa ahlikum naara naftaada laga bilaabo horta naftaada badbaadi marka koobaad gabadhan waxay ahayd gabar shaqo badan dadkooda caawinaysa aad iyo aad u shaqaysa runtii mataqaanaa walaalaheed iyo dadkii la dhashay wax badan u qabatay ka bacdi wili aan guursanin markay xanuunsay dalkii bay tagtay waxay istirkaalis mataqaanaa meesha ku soo naso markay meesha tagtay walaalaheed waxay yiraahdeen mataqaanaa program noola yimid waa la yiri walaashay dhulaan meeshan ka haynaa beeciis waa intaas gurigaas aan haynaa beeciis waa intaas waxa weeye maalkan aas wadid aan mataqaanaa meel aan gelino gabadhan waaba xanuunsata ayaga iskama dhaadhicinba waxa kale ii sheegto iska dhaadhiciyeen gabadhan maalkan ay wada nin bay rabaa inay ku guursato nin bay u wadaa intay ninkan siinin ka horo aan ka fara qabsano bal ilaahay idinku dhaarshay ka warrama waxay tiri waxay is dhaheen maalka intaan ay mata nin bay kulli siin doontaa aan hadda ka fara maroojino programa leelimiya tiri yani dhulaan haynaa guriyaan haynaa wax badan haynaa waxaan maalkan aan gelino aniga waxay tiri tayda gabadhan ay noqoto caatay noqoto nafta hayso ilaahay idinku dhaarshay taas iyo xaq miya markaas ku aqricilna waxa weeye war wadadan waa lagu soo wada gubtay dadka ku soo gubtay walaalaha caawi qaraabada caawi laakiin wadaas ilaahay ugu talagalay yani faati dal qurba haqqahu wal miskiin as ilaahay qafka qaraabada xaqiisa si xaqiis waa maxay war walaalkay 100 jeer aan ku sheegay markaas ku soo waxa markaad dib qaba markaad guursanaya soonka okolo ciidaha okolo waxa si walaalka laakiin walaalka oo caafimaad qabo 7 carruur leh aad leedahay anigu ma biil bi ugu leeyahay biil ilaa ku dhashay diin islaamku ugu waajib weyn cid ku waajib yeeshay malaha markaan
adiga saas u fakaraysa walaashaad lacag biilaysaa walaalkaas biilaysaa abtigaas biilaysaa adeerkaad biilaysaa markii dambe waa soo dhici sama waa xanuunsanay markaad soo dhacdid gabadhaan oo kale wixii kugu dhici doona marka gabadhaan waxay ku dhaca kugu dhici doona iyadoo tiibay qabta oo tacbaana oo xanuunsan ayaa la leeyahay inaad eeray lacagaas wadaay programka aan ku qabanno وافان سوما على كل الجبل مركز دم دي أي مركز حوجو جوكت هويدا ويرن حريستي أو هويدا لفتة ويلش هي اللي جرتي فيري هويدا لفتة وهي لا هوي ويلش البرنامج ما يوضان ما بلغ ده كان ما بلغ ده إنكر قف كان أفريقيا دبد جوا مساكين وقحوتي وعبا ما هيست ما بكنا ده إنكر تدب والله رنت مركز إيدي شيء ده دبد جوا ده كون فقير سن ده دبد جوا بيل كودا هيست بقول كاسة عنان يبقول كيس ودران وحكروا هيستان ملا بين إيدي شيء وهذا رفاضسن oo wili wax u sii dheer caruurtoodii iyo gaalnimo iyo stress iyo depression u sii dheer waxba in sheegin markaan dadkaas marka ka dhaadhay marka gabadhii ala kulli xal iyadoo murugaysan ay soo noqotay markii ugu dambeysay ayagana markii bay kulligooda block saartay waxay raali noqdo walaalnimada naga dhaxaysa daasid wax kale oo naga dhaxin kara mala markaan war adiga marka wadadaas ka leexa ha walaalka walaasha caawi laakiin marka priority koobaad waa naftaada فأنت سماه هذا نفترض كيف يفكر ويسو ديكرك سكرتك اللي حنونك وإن حنونك كوليسترولك جاستريك واحد عذر ما على السوق مرك لكن نفترض حوق صار بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته